kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan, gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir injineer Cumar Cali Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Camri Jaketi ayaa si wada jir ah u daafuray dhismaha wada 1 kiiloomitir oo isku xirta wadada Shabeelle ilaa isbitaalka Martini. sidoo kale wadadan ayaa dhaxmarta degmooyinka Xamarweyne, Waabir iyo Xamarjab, waana wada muhiim ah oo ay aad u isticmaalaan gaadiidka iyo bulshada. gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir ayaa ugu horeen warbaahinta la hadlay. wadadan waxay muhiim u tahay oo maanta aan dhagax dhigayno isu socodka gaadiidka dadweynaha ee degmada Xamarweyne. waxaan ognahay toddobaad ka hor gudoomiyaha gobolka in uu yimid degmada Xamarweyne barnaamijka xog ururinta isagoo sameynayo oo dadkan ay ka codsadeen ganacsatada iyo bulshada degan degmada in wadadan muhiimka ah loo dhiso. run ahaantii isla goobtii ayuu ku balan qaaday in uu ka bilaabi doono wadadan oo ay ka bilaabanayso oo cabirkiisu yahay 1 kiiloomitir oo ay ka bilaabanayso wadada Shabeelle oo hadda aan taagannahay ayna ku eg tahay ka soo bilaw Shabeelle beerta nabadda ilaa iyo Martini oo gobolka uu dhisay laamigaasi uu ku eg yahay. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Camri Jaketi waxa ay ka hadashay muhiimadda ay leedahay dhismaha wadadani. Shabeelle ee degmada Xamarweyne sidaad ogtihiinba waa wada halbowle ah oo ah shacabka Soomaaliyeed ee aad u isticmaalaan. sidaad ogtihiinba maamulka gobolka Banaadir wuxuu ku shaqeeyaa cabashooyinka ee bulshada ka soo yeera ama baahiyada bulshada inay ka jawaabaan mar walba ay diyaar u yihiin. shacabkana waxaan u sheegaynaa inay ilaashadaan wadooyinka la dhisaayo, bilicdeeda iyo nadaafadeeda iyo ka warqabideeda inay gacanta ku hayaan danta guud iyaga iska leh. maamulka gobolka Banaadir mar walba wuxuu u taagan yahay in caasimadii siday ahaan jirtay dib loogu soo celiyo horumarkii iyo bilicda magaaladaneetina mar walbaana u taagannahay. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir injineer Cumar Cali Cabdi waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dhismaha wadooyinka caasimadda. waa wado ay dadku dhibaato fara badan ku qabi jireen. maanta waxaan u taaganahay insha Allah inaan ka dhigno laami haddii Ilaahay raali ka noqdo. waxa ku mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala. waxaan rajaynayaa insha Allah degmada Xamarweyne iyo Waaberi oo dhinaca iyo Xamarjab intaba inay ka faa'iideysan doonaan. wadadan waxay mari doontaa dadku sidii u yaqaaneen beerta nabadda iyo Biyaas Libero waxayna tagi doontaa insha Allah Via Roma. waxaan rajaynaynaa bilicda markii aan ku dadaalno ee aan keenno dhisidda wadada dadweynaha degan iyo ganacsatada waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inay gacanta ku hay doonaan. kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan waxa uu kula dardaarmay bulshada caasimadda ku dhaqan in ay door ka qaataan ilaalinta wadooyinka dib u dhiska lagu sameeyay iyo sidoo kale in ay qaataan kaalintooda ku aadan horumarinta caasimadda. sidaas ayuu maamulku u dadaalaa. wadooyin badan oo kalena waxa hadii la idmo maalmaha soo socda ayaan iyo bilaha soo socdaan dhagax dhigi doona, kuwana xariga laga jari doona. aad iyo aad shaqo badan la hayaa. shaqadu kama qarsoona shacabka. waxaan rabnaa in shacabkeenu saas noola socdaan, la garab istaagaan. howlaha wixii naga tan batana ay maxaan ku waraa gacan naga siiyaan mar walba. intaas waa wadada iyo umuuraheedii. waxaa jirta arrin kale oo ah wadada marka la dhisay ka bacdi. wadadan haddii la dhiso dadka halkan jooga maanta waxaa laga rabaa inay iyagu ilaaliyaan nadaafadeeda, bilicdeeda iyo wax walba. annaguna waa kula xisaabtamaynaa haddii alla yiraahdo. maamul ahaan iyo shacab ahaan waxaan rabnaa inaan tiis qaadano, isgarab istaagno, aan wax qurux badan ka dhigno meeshaan. lacag fara badanaa geliya dabcan, laakiin lacagtii la geliyay waxaa ka sii daran haddii markii lacagtii la geliyay intaasoo waqtiga la sugaayay, baahidaas loo qabay, cabashooyinka ay shacabka imaahayeen kuwa ugu faraha badan. markii la xaliyay haddii haddana wadadii wax gaaraan ama ay wado wasaq badan oo maxaan ku yiraahdaa nadaafad iyo waxba haysan ay noqoto, niyad jabay nagu noqonay. marka waa rajaynaa inaan arrintaas u wada dhaqaaqi doono. gacan inta ugu badan ay shacabku qaadan doonaan ilaalinteeda iyo maxaan ku yiraahdaa sheegay inaan wadada hanti iyagu ay leeyihiin ay noqoto. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.